sheekadani waxay gooni u tahay Radio Hirsamo. kulan wacyigelin kusoo dhawaada qaybtii 17aad ee sheekadii taxanaha inoo ahayd ee la magac baxday laab mid ah iyo lur jecel waana fikradii alabwaan isma sitowsi waana qaybtii 17aad ee sheekadani waxay gooni u tahay Radio Hirsamo. baari oo hoos u dhac ku yimi aragtida lamaantiisa barni markii barafkii lasoo duldhigay ayuu sare u booday markuu gacanta saaray galaaskii biyaha qaboobani ku jiraan asagoo leh hoho maxay waxa sidani u qabooban oo gacantiiga jilciyey baari oo la dhakafaaray heerbaadiinimada walaalkii ka muuqato ayuu isku dayay inuu fahansiiyey balse waa uu ku gacan sayray cartanna wuxuu ahaa dadka dabeecadaha qalafsan oo wuxuusan aqoon ku degdegin ayagoo isku dhiban baari iyo walaalkii ayaa ku soo baxday hadaf baarto oo markaa suuq ka timi waxaanay isdhaafsadeen hadaf baarto oo tiri bal maxaad isku haysataan wiilashanadow baari ayaa hadalka ka jawaabay oo yidhi eedo cartan waa nin madax adag hadalna qaadanayn kaalayo wax u sheeg adiguba hadaf baarta ayaa weydiisay wiilkeedii cartan ahaa oo ayadoo leh hooyo maxaa kugu dhacay cartanow madax adeegii baadiyaha kugu ogaa maad wadaa maba weynaatid miyaa cartan oo cadhaysan ayaa yidhi hooyo wiilkan baari ah si daran buu maanta i yeelay halkii aan ka filayay shaax aan cabo buu wax qaboobani hoosta iga soo geliyey kolkaan gacanta ku qabiis yidhi waaba wax gacantiiba iga adkeeyey hadaf baarta ayaa qosol la daadatay oo tiri aarheedhe cakurir baadiyanimo xuma dee waxaasi qaboobanaad sheegayso waa baraf waa shay heerkulka qabowga adka ku noqda marka dadkan reer magaalkaa caba cartan aad buu la yaabay sida hooyadii magaalka ula qabsatay baarina maalmahan wuxuu fursad u waayay in uu tago iskuulkiisii barayfadka asagoo xitaa ka mashquulay la hadalka jaceylkiisii barni xitaa taleefonkiisii gacanta meel ayuu iska yiilay maadaama ay mashquuliyeen howlihii walaalkii uu ku soo dhaweynayay markuu taleefonka uu soo qabtay wuxuu ku arkay misad kol badan oo ilaa iyo dhowr boqol gaaraya inta badanna waxay ahayd gaclisadiisii barni oo ka daashay soo wicistiisii markuu misidkoolkeedii arkay ayuu ku celceliyey dhowr joor marna waxaa la lahaa waa mashquul marna waxaa la lahaa lama heli karo baarina oo quus ka taagan oo ku celcelinayay taleefonkii ayaa hal mar u dhacay dhegeystayaal qaybtii 17aad ee sheekada halkaa ayaan ku ekeenaynaa intaynu dib kulmi doono qaybta xigta waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo lana soco sheekadan noqona qof ka sheekeeya ha noqon qof looga sheekeeya markaad wehelsiisay naftayda wareertay madnihii ku tabaayay kolkaa tidhi waykan walaacii haystay daqiiqad ku waayay wadnii ku tabaayay kolkaa tidhi waykan walaacii haystay daqiiqad ku waayay qofka sheekeeya balse ha noqon qof looga sheekeeyo
lahaa